وأوغاس شيخ محمد وحان هاي نين أو غافنا أوتاغن وجيا كاونتي مانتا وحان اسكوي ماني مانتا إنان كهذلنا أما أن إسو شيخنا إن وقتي وحان صوّدني أو أرنتي community غوسكي أن كده شيوفاي ومدو صوّد the process oon isku daynay inaan maaragtay aan candidate ka soo saarno oon ku heshiino inay maanta arrintii ideed ay soo afjarantay oo processkii ayaan soo wadnay waxay ahayd first application second waxay ahayd appeal labadiba ayaa maaragtay ay suurtagali waayeen maanta waxaan ka xumahay inay arrintaas iyada ay dhacdo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in maaragtay kulay arrintaas iyada way socon doontaa muddo kale waqti kale wixii dhacwaan arki doonaa laakiin tii appealki hadda way soo afjarantay marka waxaan rabaa inaan ka sheega ama aan u sheega reer Wajeer iyo walaalahay beeshafay beesha Dagoodiya reer Wajeer kala kulligood inaan u sheega insha Allah ta'ala waxaan gaarnay muddadii aan doonan lahaynay kursi oo ka codsanay inay kurino ridaan sidaad ogtihiin muddo hore markay soo baxday vaadhigtadii hore sidaan oo kale waa nooc numaysay hadda vaadhigta lama gaarin processkii wali socdo laakiin wuxuu noqday process ayaan lagu qanci karin sidoo yahay iyo supporterskayga waxaan go'aansanay inaan processkaas hore u wadno oo maxaan ku dhahay inaan kuro doonano inaan reer Wajeer u tagna inaan campaign galna in mataqaana aan hore u socono markii hore waxaan u cindareebaynay familiga sidaas ogtiin inaan maartay aan keenna hal qof aan isku daynay waqti badan ayaan gelinay ilaahay kama dhigin marka hadda waxaan joognaa waqtigii arrintii ideed inaan soo afjarna wixii kale oo imaaday ilaahay leeyihiin wixii kale oo imaaday ilaahay leeyihiin laakiin hadda waqtigaan joogna waa ka soo weynay waxgal noo ah processka asaga marka waxaan rabnaa inaan u shaacina reer Wajeer walaalayaal sidaas ogtihiin kullay aniga waxaan nahay nin oo 2017 ay dadka kulli ay sugayeen in 2022 inuu noqon doono nominiga familiga Faiga kii Faiga extension keedana waxay macnaheedu ay tahay inaan noqon kara iyadana kii Dagoodiya inaan noqon kara nominigi Dagoodiya inaan noqon kara iyo Soomaali weyn kulli marka sidii iyada tahay waxa dhacday in la waaya dadkii salaadiinta u dhiibay arrintiideed inay garan waayaan ballantii la qaaday kulli waan wareejinay waxa waay ballantiideed in handana dhab ay ahayd ayaa noola sheegay sabayna nagu la xiri xumayna noola sii laakiin ballantiideed in nagu soo baxandana way suurtagali waysay nasiib xumadaas dhacday kadibna wax process oo lagu qanca oo runtii wax gal oo lagu qanca waan soo weynay waxa kamid ah waxaan isku daynay shalay oo proposal bixinay in qorituur aan sameeyno sidaas ogtiin qorituur qof ay dib ku tahay male maxay yeelay ama aniga helay ama adiga helay laakiin waa la diiday marba la diiday aniga waxaan dareenay in maaragtay meesha sida cadaalad iyo wanaag ayaan loo soconin marka go'aankii aan qaadanay inaan markaan iska badhaafno processka asaga ayaan hore u socon waxaan u maleynaa hadalkii way gaaban yahay waxaan garab taaganahay muxshmaa ugaad sheekh waxaanu ku cadeynaynaa anagoo afkii reer Wajeer isku masalayna lixda sub county waan ku garab taaganahay insha Allah ilaahay idinkiis xaqii in laga aajiray aas malaynaysa dadkaada ku soo dhicin haaya oo ku garab taagan adigoo niifiyow Kenya xisbiga isku soo waxay leed in isku kacdaan ka doonayna anugoo qaybta hadda maahan taagan cidii Faiga isku masalahayna marka waxaan leeyahay reer Wajeer qofkii mudnaay u qalmi cadaalad iyo wanaag iyo horumar reer Wajeer ka shaqayn lahaay waa haynaa haddaan helnay waa Ugaas Sheekh Maxamed
annagoon qabiil fiirinaynin annagoo intaad ka soo jeedda aan islahayn oo reer wajeer ah reer wajeer waa isku aabbi hooyo waxba ma kala aha waxaan doonaynaa inaan ninkan walaalkeenna codka ugu hiilina arrimihii u dhaxeey oo Dr. Xasan iyo ugaas in lagu kala reebo la rabay 7 caw aan u fadhinay ayaa xal guul daraystay saaki waxa isbilaan imaaday walaalkay ugaas inaad reer wajeer ka codsado saacadan laga bilaabo in as ilaahay ka dhiga kii ku soo bixi lahay asna taga dabadda waxaad naga codsaday annagoo reer wajeer ah anoo reer wajeer u hadlaa in la daadaheeya ilaahayna aadna garab gala aadna ku soo baxa kaalmana la siiyo oo la garab gala ka fanaagi wajeer aad noqdo insha Allah walaalayaal waxaan baaq u diraa wixii codsi hoos gafanaha dhiibtay waa maqlayseen wixii odayaal ay ka dib dhiibeen waa maqlayseen aniga mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan baaq u diraa dadka ugaasyaha iyo qaarna wajeer joogay qaarna ka imaaday Itoobiya arrintan inay waxa la dhahay gun ilaahay iyo gar ilaahay hadday gun ilaahay hadasho gar ilaahay ka hadasho waxaan u maleeynaa wax qasma inay jirin arrintan in la hamba qabto ninkan odayga oo mar labaad iyo mar saddexaad la magane arrintiina ku qanci waay maaragtay wixii tabana la magane laga hadlo oo la magane wixii tabashadiisa loo dhamaashatira oo arrintan dadkan aas kala fakanin aniga codsigaasaan u diraa ugaasyaha iyo suldaanka iyo waxaan la soo saaray sida aawadeed brosolka asaga waa ka baxnay waa qodobka labaad waxaan reer wajeer u sheegaynaa 7 bilood aan garda diyeyni garta iideeda la helay waxa la dhahay ballan ilaahay iyo rasuulka leh aajirta yaa la dhahay wax ilaahay iyo rasuulka ka weyn ma jiraan ballan ilaahay aajirta yaa la dhahay waxa shaahidka la dhahay dadweynaha 10,000 oo maalinkii beerta Sheekh Ibraahim iskugu imaaday iyo howlka aadan qaasin tii aawadeed subaynaa la xiri xumaynaa la bixi waxaan qaybaynay hashi baadideed adlaa la arki sumada ku dhigay in la leeyahay ugaas anagoo walaal jecel aan intaan daba soqonni oo leena tolkaan haliisa keena arrintan hal la saxa arrintan si fiican ha loo wajaha arrinta haday adkaatay hadda waxaan go'aan gaarnay inaan reer wajeer aan kuru u doonano ilaahayna aan barina ilaahay aan ku xirnaana wajeer waxaan baa ugu dirayaa walaalayaal waad naga warhaysiin dhabkiin soo marnay hadafkiin soo marnay waad ka warhaysiin ballantuugaas bannaanka ayay taali mihi magaalo waa laga warhayaa walaalayaal diinta waxay qabtaa ninka la xaqin in la garab istaaga waxaan ninka codsanaa walaalayaal inaad ugaas Sheekh Maxamed nala soo dhistaan laga keenay oo talkayna ah oo 14 ugaas iyo suldaankoodii aan dooranay yaan cadaalad daradood galabta iskugu soo binaan baxnay xaq ilaahay aan ka cabsanaynin oo xaqi dadkii duugay ninkan oo 2017 walaalkiis uga haray yaan inay xaqiisa la soo bixinaa yaan u maleynaynin ninkii kale oo walaalkiis ahay markii shir la dhigtay ninkii walaalkiis ahay oo Xasan Wahliye ahay yaa la soo qaaday ninkii asaga ahay bilka bacdi waa wareejiyeen waxay ka qaadeen certificate haddii certificate ka qaadeen ninkii 2017 in ay siinaan si looga maleynay nin kale ay keeneen meeshaas in ay ilaahay ka cabsiina jiran oo cadaalad ku dhaqanaynin yaan fahan oo galabta meeshaan iskugu imaanay